teendhada afisyoon ee magaalada Muqdisho waxaa ka furmay shirka golaha wadatashiga qaranka kaasi oo looga hadli doono qodobo dhowr ah oo ku saabsan arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. Wasiir Maxamed Xuseen Roble ayaa furay shirka golaha waxaana goobjoog ka ah dhammaan shanta maamul goboleed ee maamulka gobolka Banaadir qaarkoodna ay hore u diideen ka qaybgalkiisa. wakiilada beesha caalamka ayaa la tilmaamay in awoodda ugu badan ay ku bixiyeen madaxda qaar ee hore u diiday shirka golaha wadatashiga qaranka ee isugu yeeray ra'iisul wasaaruhu siday uga qaybgeli lahaayeen isla markaana ay ugu hoggaansami lahaayeen qodobada la isku soo jeediyay ee ku aadan dardargelinta arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. wararka soo baxaya ayaa sheegay in shirka diiradda lagu saarayo arrimo badan oo ay ka mid yihiin amniga qaranka, dardargelinta howlaha doorashooyinka, hufnaanta iyo jaangoynta waqtiga rasmiga ee la soo gabagabeynayo doorashooyinka golaha shacabka ee baarlamaanka Jamhuuriyadda Soomaaliya. wararka soo baxaya ayaa sheegay in shirka diiradda lagu saarayo arrimo badan oo ay ka mid yihiin amniga qaranka, dardargelinta howlaha doorashooyinka, daafurnaanta iyo jaangoynta waqtiga rasmiga ee la soo gabagabeynayo doorashooyinka golaha shacabka ee Jamhuuriyadda Soomaaliya. waxaa sidoo kale la sheegay in shirku intuu socdo looga hadli doono caqabadaha qaar ee ku horgudbeen doorashooyinka iyo sidii loo sii wadi lahaa isla markaana go'aano kala duwan looga soo saari lahaa. shirkan oo ay ka wada qaybgalayaan madaxweynayaasha dowlad goboleedyada iyo gudoomiyaha gobolka Banaadir ayaa waxa uu ahaa shirkii uu iclaamiyay ra'iisul wasaaraha waxaana looga hadlayaa arrimaha la xiriira dardargelinta doorashada, hufnaanta doorashada iyo sidoo kale sidii doorashada loo jadwalayn lahaa isla markaana maaragtay loo qaban lahaa doorashaduna dalka ay ugu noqon lahayd tii maaragtay looga gudbo xaaladdan. waxaana inta shirka uu socdo guddiyo kala duwan ay la kulmi doonaan golaha wadatashiga qaran. dadka qorshaysan inay la kulmaan waxaa ka mid ah daneeyaasha maaragtay arrimaha doorashooyinka oo ay ka mid yihiin wakiilada beesha caalamka. waxay sidoo kale la kulmi doonaan midowga musharaxiinta maaragtay xubno matalaya. waxay sidoo kale la kulmi doonaan qaybo ka mid ah bulshada rayidka si ay u dhageystaan maaragtay tala soo jeedintooda la xiriirta doorashooyinka. marka shirkan runtii waa shir aad u ballaaran oo aan filayno inuu maaragtay soo gabagabeeyo arrimaha la xiriira iyo arrimaha ku gadaaman guud ahaan sixitaanka doorashada. ra'iisul wasaaruhu iyo dhammaan golaha wadatashiga qarankan waxaa ka go'an inay shilkan ka guulgaaraan sidoo kalena lagu xalliyo oo diiradda lagu saaro haddii uu jiro meelo lagu kala aragti duwan yahay. marka waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqon doono mid guulaysta oo ay maaragtay ugu dambeyntii ka soo baxaan qodobo wax ku ool ah hufnaanta doorashada iyo in doorashadu ay sii socoto. maamul goboleedyada qaar ayaa la tilmaamay inay doonayaan in doorashooyinka laga dhigo hal deegaan isla markaana dhammaan kuraasta golaha shacabka ee ka soo baxaysa deegaanadooda ay ku soo doortaan halkaasi deegaan. haddaba daawada adiga maxay kula tahay warbixintan? si aad ula socotay warbixinada kale fadlan like noo saar sheer garay page-ka. mahadsanidin.